السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان إذن سلامي واحد قنتدي وأنا كسو اللابطي وحان كسو اللابطي إن دور قف أيا سو عضي أو تري وربحين نقسي مساجد علي قدود إلا شلنا واقع آمسنا كمان أنا دقدقين مساجد علي قدود دنبنا كو دقدق مايا عنو وركيغنا وكرهيبي يا حقيقة رنتا انت اللي قارايو waxaan uga reebay wararkayga masaajid cali gaduud waa laga soo baxay waa lagu jiraa iyo waa lagu sikaday iyo way ugu badatay niman ugu sano waa la isor fadhiyaa aniga iskeeda uga carooday meeshaas oo maaragtay meel intaas laga saari lahayo ugu san ka carooday oo ciidankii ugu quwada badnaa oo Abgaal Cismaan ay meesha joogaan marka sida xaqiiqdii masaajid cali gaduud saaka markaan idin dul istaago maadaama ay uga codsateen wararkii saxda ah masaajid cali gaduud u dambeeyay soo gudbi waa maqlay ciidamo military oo gorgor oo tiro badan ayaa gudaha u galay waa maqlay shalay in ciidamadii ugu badnaa shalay la daad gureeyay oo la geeyay meesha haddana waa la soo gudbiyay xalay saq dhexe inay ciidamadii wada galeen meesha oo nimankiina isaga huleeleen xaqiiq rasmiya laakiin oo boqolkiiba boqol ah kama bixin kara meeshaas waa maqlay in magaaladii intay ku sugnaayeen dhan ay doqon ku lagu burburiyay oo dhulka la dhigay oo guriyada dhamaa ay dhulka daateen waxaas dhan waa maqla laakiin waxaan ka carooday oo anigu aad aan ugu carooday Abgaal Cismaan oo ogahay quwadiisa aan niman halkaas jooga ee hor fadhiyaan way iga dhaadhici weyday suurtagal la weyla noqon weyday sidaas awgeedana shalay life aan ugu dhaleelay meeshaas nimanka jooga oo Abgaal Cismaan oo waxaan ku yiri dagaalka daacad lagama wada aha ogusna meeshaas kuma jiri karto haddii dagaalka daacad laga yahay maantay dii ilaahay yiraahdo waxaa la rajeynayaa jugtii ugu weyneed inay dhacdo oo meeshaas ka dhacdo laba dhinacba inay ka dhacdo hiiraan inay ka dhacdo inay maaragtay masaajid cali gaduud ka dhacdo galmudug ruuxeeda xataa inay ka dhacdo waa la rajeynayaa saddexduba jug culus inay dhacdo maantay wixii ka soo kordha waxaan ka raali gelinayaa intii aan ka aamusay masaajid cali gaduud oo aan warbixintiisa rasmiga runta ah ay idiin soo gudbin waayay aan ka xumahay maantay laakiin waxaan ka ballan qaadayaa wararkii ugu dambeeyay oo meeshaas ku saabsan inaan idiin soo gudbiyo oo aan soo aruuriyo xogogaal ah oo xaqiiqda ah sida ay indhihiina ku wada aragteen oo baraha bulshada la soo wada dhigay meelaha ay nimanku ku jireen oo dhan dhulka la dhigay waa la burburiyay guriyay ku dhuman jireen oo dhan duqeyna eber looga dhigay wax sawirada ka soo qaadaya oo meeshii tagana waa dawladda dabcan waa gorgor ciidamadii gorgor galay meesha maadaama ay magaaladii sawir ka soo dhex qaadayaan waxaa la dhihi karaa magaaladu way ku dhex jiraan gorgor oo way dhex galeen ma dhihi kara xabad xoog laa dhacday isxabadayna dhicday ma dhihi karo nimankii way ku jiraan ma dhihi karo way ka baxeen ma dhihi karo dhowr goor 5 goor 6 goor ka badan ah waxaa la soo tabiyay masaajid cali gaduud bataatanba in la wareegay dad jooga ay soo tabiyeen oo rag saaxiiba aan waliba nahay ay soo tabiyeen waa soo gudbiyay waxaana fiican in warar sugan la soo gudbiyo oo dadka loo soo gudbiyo masjid cali gaduud waa igu bata waa la gala waa la qabsada waa laga soo baxay xeerad dagaal awgeed horaa loo soo noqdo horaa loo sii socdaa waa lagu sikada marka inta aan xaqiiqda ka helay oo aan hubinayo masaajid cali gaduud dhammaantiis inuu faraha ka baxay iga soo warkiisa insha Allah tacaala waan idin soo gudbinayaa nimankan August la yiraahdo haddeertan ayakii ka dhex taagan tahay dagaalkii ugu weynaa ka dhex taagan lacagihii iyo qarashkii iyo wixii ay isticmaali jireen oo dhan ay waayeen oo ay maaragtay isticmaali jireen waayeen waxay isku haystaan hogaamiyaashoodii lacag lagu dagaalgala keen iyo lacag lagu dagaalgala keen ninkii dhaqaalaha hayn jireen dhaqaalihii uu soo gali jiray ma hayo oo dagaal ku furmay nimankii 3 bilood ku socda dhaqaalaha ugu badanna meeshu ka soo xaroon jiray ninkii maad salaada iska degay oo iska xabadeynay Basra la yiraahdaa meesha ugu dhaqaalaha badan oo Muqdisho laga baadayna ahaan jirtay ganacsatada Soomaaliyeed waxay ku dhiiradeen inay lacagihii badanaa joojiyaan kuwa wali tooganimo ku diray markii laga reebo iyo bangiyo yar oo lacag u taala markii laga reebo oo dabagal lagu hayo insha Allah tacaala nimankan waa laga adkaada waana ka adkaana waana iska celinaynaa wayna jabeen ilaahay idinkiis mardhowna nimankan ayadoo laga gacan mariyay anigu waxaan u qabtay xil guntada ahaan qiyaasteeda xeelada dagaalka markaa qiyaasay 2023 bisha 9aad 8aad 7aad waa lagu sheekaysanayaa nimankan meel ay aadeen ilaahay idankiis waana laga adkaanayaa xasan sheekh maxamuudna wuxuu soo hoyn doonaa magaca hadda ka hor u soo hooyay shakhsi Soomaaliyeed haddana wuu soo hooyay
magacaa hadda ka hor ummadda soomaaliyeed aysa aan maaragta hadda ka hor aan ka dhex dhicin oo nin 2 goor soo noqdo madaxweyne asaga ku horreeyey ma jirin tan labaad uu ku darsanayaa oo ah inuu nimankaas ugusa waddanka ka sufeeyo kana ceyrsado iskana dhiciyo ilaahay idankiis magac iyo sharaf iyo maamuus ayay u noqonaysaa waxaan codsanayaa beelaha hawiye oo la dagaalaya nimankan la yidhaahdo ugus iyo raxanweyn iyo abtigay axmed maxamed islaam beesha ogaadeen iyo wixii la dego dhan oo halkaas soomaaliya la degta inay xasan sheekh maxamuud warkiisa dhegta u furaan nimankaana iska xoreeyaan wallaahi bilaahi tallaahi meesha nabaddaa ilmihii usoo rarteen way ku soo qaxeen waa dhaarta saakeen inay soo rarteen oo dooma soo saarteen ilmahoodii iyo naagahoodii aanay kugu dhaaran karaa laakiin idima dhihi kara meeshaasaa laga soo rara dadka shacabka haana soo sheegay runta iyo xaqiiqda aad iugu imaanaysaa dabagalka nimankaas aad iugu imaanaysaa shacabka waxay ii soo tabiyaan oo xaqiiqan kuu soo gudbinaya ilaahay idankiis mana ku qaldi doono beenna kuma sheegi doono runtaada igu imaan doontaa iyo xaqiiqda